ereyga Somaliland ogolaan maayo xorriyaddeeda madax bannaanideeda iyo la noqoshada gobonnimadeedii waxaan ka leeyahay horta la soo noqoshada Somaliland gobonnimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax bannaanideeda ee ahaa xorriyadda ay ka qaadatay Ingiriiska 26 Juun oo Afrika oo dhan ay kala siman tahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday Somaliland Soomaaliyadii Talyaaniga Juulaay 1960 labaduba wuxuu ahaa go'aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen Somaliland shacabkoodu hadba madaxda joogtaan ay wakiil ka ahayd cidina labadaa go'aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqi karaan kama qaban karaan kuma riixi karaan oo aan ahayn go'aanka Somaliland sidaa darteed idinkuna hor fadhiyo oo iniga weynaya inay joogtay bale qaranka Somaliland magaalada Burcaan caawa joogo oo intiina aad ka wada marxaati ahaydeen oo la isugu yimid wuxuu go'aansaday inuu ka baxo midowgu ku khasaaray markii ay burburtay waxaanu ku heshiinay uu qarannimada gaar isula taago iyadoo la isu dhayahay taana Xasan Sheekh iyo Xamar ni jooga iyo mid Islaanda jooga iyo mid meel kale jooga waxba laga weydiin maayo 30 sano qaran madax bannaan baynu ahayn hadalka aad tiri cadaawada uu kordhinaya aqli xumana way tahay 30 sano kala maqnaynay waxa ka wanaagsanaa inaad tiraahdo ku leenahay laba dawladood oo jaar oo walaalo Soomaaliya ma ahaana hadday ku deeqayso weeye adiga oranaysa qodobka uu yiri xadadkii Talyaaniga iyo Ingiriisku sameeyeen in kala soocimaayaan oo in kala gooymayo wax weyn naga dhaxay waxaan kale ama aynu kaleenahay horta xadkii isticmaalku waa kay ku dhisan tahay Afrika 4 iyo 50 dawladood Soomaaliland waa 5 nin diida iyo ratiisiyaba waayo waxay ku fadhidaa xadkii isticmaalka Xasan Sheekh iyo madaxweynaha Xamar waxay ka mid yihiin oo ay fadhiistaan shirka midowga Afrika xeerkeedu wuxuu ku dhisan yahay xadgeedu inay Afrika ku dhisnaato xuduudihii isticmaalka waa laba wajiilanimo iyo munaafaqnimo dadka aad u sheegayso inaad dhex fadhiisato oo ku dhaqanto xeerka midowga Afrika ee leh Afrika waxay ku dhaqmaysaa xeerarkii xadadkii isticmaalka tagay isla markaana aad leedahay Soomaaliya Somaliland ku kala raaci maayaan xadkii Talyaaniga Ingiriiska oo maxaa ka reebaya haddaad diidan tahay axadiga midowga Afrika deeskaga bax Afrika midowga Afrika waadu mid gaar samayso wax taaro ma doonayo xuduudihiisa Afrika laakiin Somaliland ma oran kartid kuma qaybsan karo waa sharci Afrika oo dhan buu yaalaa midowga Afrika ka mid yahay ku weydiin mayno xorriyaddeedu waxay ku soo Afrika dawladda Afrikaayiin ka shariyo kontraad baan nin diidinaan silsilada qodobka saddexaad wuxuu yiri waxaan ogolahay in iska ceeshaa wixii horumarinaa siiyo inay haddii dhaqaalaha u baahan yihiin waanu saxeexayaa hadday horumar doonayaan waanu saxeexayaa ma doonayna inaan culays ku saarno muruqayaga siyaasadeed ee dawladnimo ta hore waxaan diyaar uma nihin inaan muruqayga ku isticmaalo siyaasadda diblomaasiyadda xorriyadeed waxaan ka leeyahay haddaad muruq leedahay siyaasadeed xor tahay maxay ku ilaaliyaan nimanka Afrikaanka ah ee Afrika soo urursay ee lagu soo waxaan la yaabanahay inaad faanto tiraahdo Somaliland xornimada muruqayga ku isticmaali maayo adoo Burundi iyo Uganda ku ilaaliyaan cashuurtaadana ay shabaab ka qaada adiga daaraha iyo macaamiisha taa waan u ogolaanayaa wixii ay ku noolaanayaan iyo iska ceeshe waxaan ka leeyahay horta Soomaalidu hore uma mahmaday waxay tiraahdaa gob xurma deeqda guna gasiin iyo goosqabati ma deeqa waxay la tahay Xasan Sheekh Somaliland deeqan markuu leeyahay iska noolaadan labada erey wuxuu quurayaa kadama Somaliland Soomaalidu way istaqaana
anigu adiga shakhsiyan kuu sheegaya somaliland soo baro somaliland waa gob xurmaa deeqda ee calooshu ma deqda waxay gelayaan iyo gowsa gudbi